السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada caalam dahsoon ku xiran ku soo dhawaada barnaamij kaleeto oo dhiirigelina subaxdii markii ay qoraxdu soo baxdo ilaa inta ay dhacayso waxaa guuldareysta malaayiin qof isla markaana waxaa guuleysta malaayiin qof oo kale waana sababtu guuldarradu nolosha qayb uga tahay saynisyahankii weynaa Albert Einstein ayaa wuxuu yiri qof walba oo aan qalad samayn ama aan guuldareysan waa qof aan weligiis wax isku dayin haddii aad rabtid guul waa inaad niyadda ka jartaa guuldarrada maxaa yeelay ma jirto cid guusha damaaran nolosha kaaga qaaday imsa ayaa mar guuldareystay oo markii labaad guuleystay imsa ayaa markii ay hal mar guuldareysteen niyad jabay oo madaxa qabsaday iyaga oo guushii u dhow qof walba oo hankiisa ka tanaasula ama joojiya riyooyinkiisa waa mid noloshiisa joojiyey waayo ma jirto cid og waxa soo socda ilaa aad isku daydona ma ogaanaysid waxa dhabta ay natiijadu noqonayso ma taqaanaa Thomas Edison waa ninka sameeyay leerka guryaheena inoo ku xiran Thomas inta uusan ku guuleysan samaynta leerka wuxuu isku dayay 1000 jeer balse dhammaantood waa uu ku guuldareystay markaas ayuu mar kale isku dayay markaas ayuu guuleystay oo sameeyay leerka aynu maanta shidanno wuxuu yiri 1000 jeer ma aan guuldareysan ee waxaan isku dayay 1000 siyaabood oo aan shaqaynayn markaas ayaan helay hal dariiq oo shaqaynaya ma taqaanaa sababta reer galbeedku ay wax badan oo dunida yaala iyagu u sameeyeen ma waxaad moodaysaa inayna ka caqli badan yihiin maya xaqiiqatan sababtu waxa weeye waxay isku dayaan wax walba yacni ma aaminsana inaysan wax samayn karin wax walba way isku dayayaan waa sababta ay dadka kale ugu qoslaan markii ay guuleystaanna ay ula yaabaan ilaahay ayaa quraankiisa ina ku leh wardadoo fikira alla weyna wuxuu ina ku dhiirigelinayaa adeegsiga caqliga iyo fikirka waana tan keenta in aadamuhu adduun iyo aakhiraba uu guuleysto haddii aad jeceshahay inaad nolol farxad leh heshid ha ka cabsan waxa aad doonaysid ee dhexda u xiro oo wajah ha dhageysan dadka kale maxaa yeelay dunidan qof walba awood gaara ayuu alla siiyey haddii ay ku dhaxaan ma guuleysanaysid ama ma gaaraysid hankaaga u sheeg inaad adigu iyaga ahayn inaad adigu tahay qof gaara oo awood gaara leh dabadeed wajah adiga oo niyadaadu adag tahay dadaalna ku kabaya haddii iskoolka ama jaamacadda lagu yiraahdo damiin ayaa tahay haniyad jabin ku qosol iyaga oo u sheeg inaad tahay qof gaara dadaalkaagana xarkaha ka fur maxaa yeelay oraah ingiliisha ayaa oranaysa hard work it is intelligence oo macnaheedu tahay dadaalka iyo juhdigu waxay ka adkaan karaan caqliga ama xirfadda talent haddii aad aragtid qof iskuulka ama jaamacadda maadooyinka darajo fara badan keenaya hamoodin inuu ka caqli badan yahay ee dadaal oo juhdigaaga sii lama laab waxaan kuu ballan qaadayaa inaad isaga xitaa ka sarreynaysa Albert Einstein oo ahaa saynisyahankii qarnigii tagay ugu weynaa wuxuu ahaa yaraantiisii mid ay macallimiintiisu ugu yeeraan damiin aan waxba fahmin balse maanta aynu ku jirno qarniga 21aad Albert Einstein waxa uu ku jiraa dadka dunida ama taariikhda aadamaha ugu saameynta badan waxyaabihii uu ikhtiraacay aragtiyihiisa sayniska iyo buugaagtiisii ayaa maanta iskool walba oo dunida ku yaala lagu dhiganayaa xitaa macallimiintii isaga ugu yeeri jiray damiinka ayaa isaga ka dambeeya Jack Ma inta uusan ganacsigiisu guuleysan dhowr jeer ayuu jaamacadda Harvard ka codsaday inay aqbalaan balse waa diideen haddana shirkadda KFC ayuu shaqo ka doontay balse way diideen waxayna u sheegeen inaysan shaqo u hayn maanta jaamacadda Harvard ayaa u yeerta oo baryaysa si uu ardayda u dhiirigeliyo sidoo kale shirkadiisa Alibaba ayaa 2 jeer ama 3 jeer ku laba jibaaranta oo ka weyn shirkadii uu shaqada ka doontay ee KFC waa awoodda qofka bini'aadamka ah waa awoodda nafta waa awoodda shakhsiga ama qofka bini'aadamka ah uu Ilaahay siiyay waligaa naftaada hoos u dhigin oo ha u joojin dadka kale waxa ay ku leeyihiin adigu awooddaada garo oo noqo qofka aad jeceshahay waad awoodaaye
haddii aad ka heshay barnaamijyadan aanu soo gelino janalka Caalam Dahsoon, fadlan ha ilaawin inaad barta cas taabatid oo subscribe saartid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan halkan soo gelino ee waxtarka leh. mahadsanidin.